Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saan idiin sheegay waxaan bilaabeynay buug cusub. Buugga cashirkiisii koowaad ayaan macnaynaynaa ama aan qaadanaynaa. Buugga magaciisa waxaa la yidhaahdaa Deutsch im Alltag oo ah Aasivay. Cashirkiisa koowaad ama kaabitelkiisa koowaad wuxuu ku saabsan yahay dharka ay dadku xidhaan magacdooda. Kapitel 13. Das steht dir gut. 2. Was tragen Sie? Was trägst du? Cashirkaan maanta qaadanayno teemaga ugu horeeyay waa sawirkan. Saad u arkaysiin 4 qof ayaa ku sawiran iyo lambaro ku dul qoran. Markaad saa u aragtid dharka ay sitaan dadkani af German maxaa lagu idhaahdaa, maxaase maskaxdaada kusoo dhacaya. Waxaana tiitelkiisu yahay Das steht dir gut, kaas uu kugu soo baxayaa ama dharkan uu kugu soo baxayaa 1.a. Aufgabaha ugu horeeyay waxa uu yahay ee lagaa rabo Sehen Sie die Bilder an. Welche Wörter fallen Ihnen ein? Eeg sawirkan una fiirso magacdee baa kusoo dhacaya maskaxdaada amaba inteed ka taqaanaa dharkan aad arkaysid magacda lagu idhaahdo af Jarmalka. Waxaa lagaaga baahan yahay in aad isku ururisid ood meel ku qortid. Tusaale macalinkaa kaa raba inaad dharka markaasaad dadka aad u aragtid aad qorqortid wixii aad ku garanaysid af Jarmal. Su-aasha labaad ee lagu weydiinayo waxay tahay Schreiben Sie die Zahlen aus den Bildern zu den Wörtern. Ku qor lambaradan aad ka arkaysiin shaashada ama sawirka kelmadahan soo socda ama kelmadahan ku qoran buugga. Tusaale haddaan soo qaato Der Anzug wuxuu wataa lambarka 16 amaba 16 saad u arkaysiin waxa wata Der Anzug. Waa kelmado badan oo laysku dhex daadiyey. Waxaa lagaa rabaa inaad adigu isku hagaajisid lambar kastaba aad kelmadiisa ku hagaajisid. Dhammaadka fiidiyooga ayaad ku arki doontiin xalkii oo dhan ama oo dhammaystiran. Laakiin inta aanad fiidiyooga gaadhin dhammaadkiisa isku day inaad joojisid ood ka shaqaysid ood isku hagaajisid lambarada iyo kelmadaha isku dhex daadsan. Tusaale Der Anzug waxaa weeye kostiimka ay rag ku xidhaan ama kordhic krafaatka. Die Bluse waa shamiis ay gabdhuhu xidhaan. Die Brille muraayada. Der Gürtel suunka. Das Hemd shamiiska sureerada leh. Die Hose surwaalka. Die Jacke jaakeetka. Die Jeans iyo jeanska. Das Kleid toobka ama toobka dheer. Die Krawatte krafaatka. Der Mantel waa jaakeetka dheer ee raggu qaataan. Der Pullover funaanada. Der Rock jiibka. Der Schal shaalka cunaha lagu xidho. Der Schuhe kabaha. Der Slip der Sportschuhe kabaha isboortiga. Die Strumpfhose waa sida leggingska oo kale oo waxa laga hoos xidhaa qaboobihii surwaalada kale. Das T-shirt garan. Die Uhr saacada. Die Unterhose shoortiga. Das Unterhemd waa shaarmaashka ama garanka laga hoos xidho shamisaanta ee garbaha go'an leh. Die Winterjacke jaakeetka jiilaalka la xidho. Baashkana waa baashkii ugu dambeeyay oo ah xalkii amaba sidii ay iskugu hagaajismayeen lambaradii iyo kelmadihii aan hore u soo aragnay.
buugga mawduuciisii ugu horeeyey ee ahaa Das steht dir gut kaasuu kugu soo baxayaa. Intaas ayuu ku dhan yahay. Insha Allah inoo iyo fiidiyooga dambe iyo mawduuc jadiida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.